afkaad aragtay ma hadli karo mudug doomiye hanaha dhanaan baqan qaladkiisu cadaalad ku raasana halkaas ku qoray dhaqan dam oo siin gacbadi xasan wallahi hawadeena u qaadiyo dhulku dhacay macna maxaa hurduwaysa waa hurduwaybe naxtin darteeda hurduwa naxtin darteed jagboonti boo ka horgalaasay jagboonta mujoohimbe geedbey cabay xashiish cabay maxaa u dhaxeeyay ICU-da la geliyay iyo isbitaalka keenista meeqa u dhaxeysay waa family caadi ugu sheeg walaasha waa wici kartaa hal qoraal ay taqaan ma laha seeta xataa ma qori karto eedeysanaha koowaad Yaxya Cabdiwaaxid Aways waxaa si gaar ah lagu eedeynayaa dambiga ah dilka marxuum Xasan Abuukar Cali kaas oo u geeriyooday dhaawac aad u culus oo aad u geysatay taariikhdu markay ahayd 13 bishii koowaad 2026 dhaawacaas oo ugu dambeyn u dhintay taariikhdu markay ahayd 9 bishii 2026 falkaas oo ka dhacay degmada Dayniile eedeysanaha labaad Maxamed Barre Cali Axmed waxaa si gaar ah lagu eedeynayaa dambiga ah gacan siin kadib markii aad gacan ku siisay eedeysanaha koowaad dhaawaca marxuum Xasan Abuukar Cali taariikhdu markay ahayd 13 bishii koowaad 2026 falkaas oo ka dhacay degmada Dayniile gobolka Banaadir mudane gudoomiye maxkamadda sharafta loo salaamaya garsoorayaasha kaaliyaha awqaatayaasha baarayaasha xafiiska ilaalinta kasoo qaybgalayaasha waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane gudoomiye garsooraha maxkamadda sharafta leh eedeysane dable xooga Yaxya Cabdiwaaxid Aways wuxuu ka tirsan yahay guutada 23aad ee booliska military taas oo ka howlgasha degmada Dayniile iyo aagaas taariikhdu markay ahayd 4 bishii 10aad 2025 isku day dhac waxay u geysteen dhibanayaal taas oo ugu dambeyn sababtay in uu ku geeriyoodo marxuum Xasan Abuukar Cali marxuumka dhaawac ayaa ka soo gaaray halkaas ka soo gaaray mudane gudoomiye isagoo dhaawac ah ayuu wuxuu baxshay ribood maadaama Yaxye iyo marxuumka la u naxariistay iyo maragyo hadeertaan maxkamadda aan hor keeni doono dhammaantood ay isqaanaan oo Yaxye uu ahaa degmada Dayniile laga yaqaan waliba xaafadaas xasan intoona dhiman isbitaalka kalkaal wuxuu diiwaan galishay cidda dhibka ku dhufatay dhaawac xabadda afka uu ka gaaray ilaa dhuuntaan uu saameeyay ugu dambeyntaas sabab wuxuu qoray cidda dhibka u geysatay markii dhibka loo geysanayay ciddi la socotay waa maragyo maxkamadda hor keeni doonaa warqaddii uu qoray oo uu ku qoray maadaama uu ahaa arday wax dhigta af Soomaaliga uu qoray ee uu ku qoray magacyadii iyo ciddi dishay inuu yaqaano mudane gudoomiye waa haynaa iyadana soo bandhigi doonaa Yaxye waxaa la dhex gelshay isbitaalka tala keenay dad badan lagu dhex qasay taliyihiisa u rumayso halkaasoo dana ka soo baxshay marxuumka la u naxariistay taasoo ku cadeynayso in marxuumka markuu dhaawac ahaa uu yaqiinay qofka dhibkii gaarsiiyey laakiin maadaama asigu muddaci uu yahay waxaa loo baahan yahay marqaatiyaal xafiisku wuxuu raadiyay marqaatiyaasha goobjoog maxkamadda sharafka waxaa ka codsanaynaa in ay noo dhegeysato maragyada ku qoran eedeena dhimashada Xasan Abuukar Cali dhaawac u geeriyooday leeyahay ragalkan fadhiina waa loo haystaa arrintaas maxaa kala socotaa see wax u dhaceen arrintaas wax badan aan kala socdaa waxaan kala socdaa waxay tahay nin oo la dhahayo Yaxye oo askari ah anaga oo balooni ka imaanay oo xaafadiina u socno jaayiga meesha lagu dagaaya waxaan ku aragnay nin la dhahayo Yaxye markaa aragnay Yaxyaha dhinaciisana waxaa fadhiyay dhulka oo dushiisa darbiga oo jaayiga lagu leexanay saarneed wiil la dhahayo ganay marka yarkii waxaan dhahay intee ka timaadeen xilligan waxaan ka imaanay balooni had intee u socotiin oo waqti ahaantaan xaafadiina u socnaa marka erigaas markaan dhahayo xasana jawaabay wiilka dhintay marxuumka Allah u naxariistay asiga jawaab labadooda wada jawaabsanayeen marka kadib wuxuu dhahay gurigeena u socnaa guriga hadaa u socotiin kulli hayo dhahay waa baxnay marka anaga socodkiisa u soconay wax yar markaa soconay waxaa naga hor imaatay mooto Fekon oo leer zaid oo shidin isbood leer ku xiran yahay mootadii markii naga hor imaatay kadib anaga mootadii aan dib u fiirinay gadaal u jeesanay macnaha soo socotay leerka indhaha noogu qabatay man naga damin marka mootadan say camal aslaan ama wax soo haleeday saadii gadaal ugu jeesanay waxaan aragnay yarkan oo qoriga watay oo Yaxyaha iyo yar ganay oo jaakad madow buu watay isla markaas yar kale tan waa la socday oo saddexeeyo markii yarka saddexeeyna xoogoo iiga gadaal u jiray ganay laakiin garab socday kan garabkiis midig
kadib marka mootadii leerkii markii ninkan oo ay qabatay gadaal aan u jeesan leerkii ay qabatay waa aragnay markii mootadii askariga ay u dhawaatay leerka way dimis marka leerka ay dimis kadib anaga waa iska soconayba ilaa ninkaan dad dilayo ninkaan qabadni ugu dhifanayo sin miyala isma dheen saan u soconay wax yar daqiiqad kadib waxaan maqlaynaa qarshab gadaal u jeesanay hadama gadaal aan u jeesanay ninkii waana daw taagan yahay gadaashan uu taagan yahay ninkee yaxya iganayo midig ka socda geeska hadda saan u jeesanay ninka amaankii furtay allah u naxariistay xasan waa cararay amaanka ninkan qac markuu siiba xasan iphone ajeeb ugu jiray iphone kan waa yala kulay ninkan xasankii carro bilaabay haddoo carar anagana waa cararnay saanta rooreen marka maxaa dhacday ninka amaanka markuu furnaay cararka xasan waa cararay anagana shakiya mana galayba horaan dhaqaaqan dam oo siin ninkan xabada xasan wallahi hawada inay u qaadiyo dhulku dhacay kor inay xabada u qaadiyo jiingad oo meesha bush ku dhisan jiingad dhinac saas oo ulasin dhulku dhacay kadib anaga waa sii cararnay gurigana hadda waa dhaafnay anaga gurigana deganahay waa gudbay wixii il rooray saddex wiil kale laba wiil kale ila socod markaa carareen waa gudubnay meelaan ku shaangalnay waa dhoomanay macnaha hadda hore qofkaan ku daba taagnaa karaa mugtaa ilaan markaa saas aan sii cararnay oo meesha aan tagnay kadib khayli wax baan maqlay khaylida markii aan maqlay si wax jiraan isdhaanay waa isoo wareersan shub waa aamusnay markaa anaga haddaa baxday ninkii hadda hore banaanka taagan yahay oo ni xabad ni ugu dhufanaa isdhaanay kadib markaa saan soo baxnay xasana xabad ku dhacday allah waana la qaaday xabadii meel xun ay ugu dhacday cunuga tabcaan waa inta dhan waa go'day madaxiisa inta dhan waa jaban yahay leeyahay saas mi ahaa markuu anigu bismillaahir rahmaanir rahiim iska dhahay asha daga iska qabsado waa soo baxay waxaan soo aaday dhinacaan oo jaayga oo laamiga xagiis jaaygan hadina ku soo laabtay mootaan soo raacay mootadaan soo qaaday ani iyar kaleeto markaasina kaas kiiska waxba kama ogeen xaafadda joogo markaas mootada ila soo raacay kadibna asina meesha baa nooga harisaa jeclahay markaan laamiga aan imaanay waxaan arkay ninkan oo xabada wiilku ku dhuftay iyo cabdibile iyo yar cabdulaahi la bartaan fadhiyo oo cabdulaahi meesha kiiska oo ka dhacay ninkan oo yaxya jaayga asoo ka soo baxay ninkaas ay wada kulmeen kadib cabdibiliha meesha imaaday ninkan ciidanka isku dhex daray markuu ciidanka isku dhex daray anigii warno ninka dilo horta waa aqaanaan dhahay ninka dili waa aqaanaa cabdulaahi markuu wuxuu dhahay ninka dili ma taqaanaa yaawa yaxya markii dhan ninkaan oo soo aaday dhinacaygu soo aaday anuu arkeeninba nin igu soo socda arkay qori wata markaan arkay annaasaan aaday qorigan kula dhegay qoriga taliya aan naga qaaday qoriga markuu taliya oo naga qaaday maxamed deeqo inuu ninkan xabadda ku dhuftay ogtaha leedahay ma u dhaara kartaa haa u dhaara karaan dhahay maadada kala jirta waxay tahay taliya ninkan markii oo kiiska falkaas aan meesha aan taagnay aniga taliyaha saas isku qabsanay taliyaha waxaan dhahay taliyow haddoo ninkan xasan ninka xabadda ku dhacday hadduusan dhihin ninka aniga waxba iguma dhufan $500 xaalmarinaan bixinaan dhahay meeshaasaa lagu kala tagaa xaal iyo xumeen taliyaha hadda waa keeni kartaa ergaasina aan dhahay kadib ninkii saas mi ahaa cabdibilihan oo lagu soo qaaday waxaa nala geeyey isbitaal kalkaal ani cabdulaahi iyo yarkaas eedeysana inteena waxaa nala geeyey isbitaal kalkaal markaan tagnay cunugii ac waxaa laga soo bixiyey qolka oo baaritaanka qofka markii xabadda meesha ugu dhacday waxyaabahaas lagu baaraya laga soo baxshay markii qolka laga soo baxshay asoo faashi ku duuban tahay oo meesha hadda xabadda ku dhacday oo haddaa barartay hal ilaa u fiidan tahay xasan oo yaa xabadda kugu dhuftay allah dhowr qofood ninkan iyo dhowr qofood meesha la joojiyey ninkan iyo saddex kaleeta meesha la wada joojiyey xasan saanoo dhaa waa fiiriyey marka dambe wuxuu dhahay ninkaan xabadii ku dhuftay horta adiga yaxya ma taqaanaa yaxya kor ahaan waa ka aqaanaa farmashii meesha ku yaalo hadda waa kii inta markaa fiiriso xagga ma fadhiya hadda yaxya waa kana yarkaan soo fiirinayo oo dhinacan jiro kan dhinacaas jira miya kan dhinacaas jira yaxya marka oo ka hor imaan haysaan oo idinla hadlaayo waa iska hor waa is aqoonsateen miya macnaa muxuu weydiinaa ninka wuxuu noo weydiiyey intaa ka timaadeen balooniyaa ka imaanay salaxaan ka imaanay indeertin gurigana u socnaa nabad haddaa ku dhafteen xabad inuu rido maxaa keenaya kolley xabad inuu rido waxa keenaya waxaan waa bilaadin nin qor wata wax walba ka suurtoowaan inoona soo daba kacay oo leerka aan ku aragnay oo caadi aan wada aragnay oo kulligeena markhaati aan kana kitaabkaasna gacanta aan gushanaanay mar labaad hadaa ku celina mar saddexaad marka waa ku booda kana dilay markaa dhahayso isla dhacdada kadib miya isla habeen miya maalin horta wax habeen aad 5 saac isla habeenkii miya marka oo habeenkii waaba isla falka isla markaas waa qofka waa dilay kana dilay markaa dhahayso isla habeenkii miya isla habeenkii waa marka hore aqoon oo rasmi ah ka dhacay soo arkay farmashiyaha oo xasan oo ka shaqeynay oo yarkaan asina oo kii kulli doctor Abdullahi xasan kale meesha farmashiyaha ka shaqeynay ninkaan doctor boo kiyaa meesha
anigana meesha waa iska tagaa markii oo shaqo iyo waxyaabahaas aan ka imaado meesha iska tagaa ninkaana markaas meesha oo imaanaya askartoo dhan meesha waa iska imaadaan ninkii oo waa la wada macaamilaan أنا حافظ دقيقة مية حافظ ما شغال مو جون بونتيغا ماشي كدو جك بونتيغا إيك دقيقة مارك ماشي كدو ده سؤال ودينا سنة طابka xasuusan waxaan ku weydiin doonaa su'aalo faahfaahin u baahan marka waxaad is leedahay eedeysane yaxya mobilku ninkan ku arkay والله تاس إذا أنا مشي كرتاس إنه كوارك إنجا موبايل لكن جابك وجري أنا نعلان وتن عليه قدام ماشي لوقات markuu isoo daba kacay adinka maxaa samayseen أنا واحد شك عرر إيرور إقرتات ما بنوجي جريمب إن أنا كان أنكررنا عبسب ما كقوين بنا مشكلة وحتى ما كلا فور markaas ma orto bilaabeen ها حسنا بلاوي wuxuu dhahay markaasi ما بنا لها اللمب أما أنك قعبة دوسي حسن وعر أنا كان تاسع دقائق دم عبد وارد وأنا دوت صحتي بعبد إلا مركب برضو كوكولا xakooda ma santahay xaafadda bangala ma degan tahay بنقال هذا ما يمدقن markuu xasan dhimanayay حسن مركو دي ماشي عند دقنا waa deganeed markuu xasan dhintay kadibna waa واك جورا saalada markii la geliyay marxuumka inta Allah u naxariistee dadkii wax ka soo bixiyay saalada ka soo saaray oo tusayay cidda wax dishay adiga ma ku jirtay أنا ما كجرين مركي لسه بحنا ما كجرين بنا ساكت تاجنا أنا نعلي لحي تلياد نعلي لحي maxaa u dhaxeeyay ICU-da la geliyay iyo isbitaalka kinistiisa meeqa u dhaxaysay وحاول دحيل مركي إيش يدل قلنا رتوح هاد مدة هذه أو سقال ساعة yaxya aqoon muu leedahay يحيى أقون قرآن الله ما شو أرك جريب نيكان wajigiisa ma taqaan ها واقع maya ma taqaani hore u taqaan وجيس ها هل مرة أرك هل مرة وهوين أسي ها ولي هل مرة أرك أو فرمشة ونقول حي ماذا weligaa yaxya hal mar arag ها moota feekon inaad aragtay ayaa maxkamadda la wadaagtay mootada feekonka ah askartii saarneed ama dadkii qoryaha watay saarnaa meeqa qof ay ahaayeen هل نلبوتي بموتداس هل نن أو دقيقة هاي hal nin bisa هل نن بس صارنا ma taqaani ninkaas ما أخانا ما أنا أورن ولي جينا ما أركن ma maqashay ama ma aragtay adiga dad habeenkaas oo laba wiil ahaa oo qoryo watay oo isla eriyada joogay ma maqashay ما maqal ma maqal waa maasantahay maxkamadda sharafta goobta uu falka ka dhacay leerar ma ku xirnaa mise mugdiye لا يروح وحرنا ماشي habeenkaas ayada dharka uu yaxya watay ma xasuusta دار أو عيدنا وتادي فنان عيدنا يسرال عيدنا وت فنان أو توتو وت adigii marxuumka Allah u naxariistee qaraabatiin suusaas ma قراءة قرآن abti kora u tahay Soomaa ها qaabka aad abti u tahay inaad maxkamad u sharxan karo قابت بتيجي أول معنا هرت جودة آمنة محمد صالح الله جودة أني إذا قراءة أنا هوانا هاي أو أنا رحت محمد على نور محمد عبد الله فالي ده جودة ويل كده شيء وعلى آمنة محمد صالح مفهوم جودة محمد صالح أنا دنك هاي دي حاجة جفا ها كر ها لا دي هبل ما آمن محمد صالح محمد على مسكين ما كرام gudoomiye arrintaas inaa ogaanaa rabnaa wuxuu dhahay jifoodu waxaa la dhahaa markii oo Ninka qabiil isku- ahaan isku abtirsan isku laf ahaan macnaa laf xagga hooyadu lafta oo wada dhalashada inuu hubiyaan rabnaa هذا كر أهان معناه قبيل أهان ماشي أن كلنا قبلاس أو اسكول فينا gabadha marxuumka dhashay aamina saasaas la dhahaa Soomaa ma sheegi يا aamina la dhahaa Soomaa gabadha آمن هو سكرستاني aday ku soo korsatay أيدي ayayda waay Soomaa ما سيدي كتا gurigeeda ku soo kortay Soomaa قرية ذا كسكرها aday marxuumkiisu guriga ku soo korteen Soomaa اسمه قرية ماي marxuumka ayaydiis aa ku soo korsatay adig Soomaa ماي aamina hooyadeed marxuumka ayaydiis Soomaa واو فاميلا عالي وشك أنا ما جهورير نصا فاطمة صالح إبراهيم عبدي فاطمة صالح فاطمة عندنا سينب أحمد عمر أنا سكرت أنا هو سينب هو يدوى ها أنا إني هذا لكم معنا ساس أبو فاميلا قرصور أو كجا هوريري هوريرتا فانسي تاسلر هوريرتا دنجة واو هذا الشام واو هذا الشام اسمه ما كلا أبو الله maama wiilkaas maxaad ku tiimi asiga adiga iyo asiga aanan aadi kala dhashay labadiin asi hooyadiis iyo adi hooyada hal hooyo dhashay waan fahansantaa iska fadhiisa markii oo cabdibilaha aad sheegaysay in oo
aad ku aragtay yaxye kadibna aad mataqaanaa isgacan qaadeen oo markaas ganay ma joogin goobta mahayno ma ganay markaas goobta ma joogin intaas waxaan ku weydiinaa waa mahadsantahay yarkan oo yaxay la cunuga xabad ku dhuftay yaxya xabad ku dhuftay ay see wax u dhaceen macnaheedu salaxa ka imaane marka xaafada u socon anayna salaxa ka imaane xaafada u socon laamiya ku aragnay marka yaxya laamiya ku aragnay inta ka imaadeen salaxa ka imaane adaan xaafada waqtiyaasaan u galnay asi socon marka dadka waan soo dawgalayeen mood feekona ay hor imaade oo nalka fulka u daaran leerka u daaran anay hor imaade marka dadkaana leerka ay qabad marka saan gadaala u fiirini dadkaana aragnay marka ay hoos socdaan waxa isdaan dadkii hadda oo laami soo aragtay waan iska siisin xaafada isku aragtiine ee ka socda waa soo soconi intii aasi socono dadkaan waan soo dawgaleen marka yarkaas oo gani la xaafadood waqtiyaas oo gaarni nalaa ka daarnaa meesha nalka daarnaa marka nalka waqtiya meesha nalkaas oo gaarni ammaanko noo furtay yarka oo hadda xabad ku dhacday aaroorka bilaabay asluura maana ninkaan reeshantoo dhacsi yarka qoort inta ka soo gashay inta uu qaraxday marka inta uu qaraxday ninkaan anayna waa orodni xaafada aadni ana xaafada ku heri bas wax kale awaam jiro adiga banooni ma dheeshaa banooni xasan waa soo dheesheen miya dadkan yaa ka wada dadkan yaa waay dadkan daba socda maanta ku labadaas hor ma arki jirto hor ma aragti waa arki jira xaafada ku arkay maxaa dhacay qofka aad soo dhaafteen intii ka dab maad xabad inuu ku rido maxaa kalifi karaa sidaa sabab أنا وحاسة كلي فكرة مسداها لكن تكانتي وسعودة مشاكري لكن أنا لنا بودي لمبة كذب إن اللي حيرني كاس يكون مغش حافظة أنا حافظة اسك صحي ورد دامي إيماني بين كاسة موردي كستيريست أو يركان أو صاحبها أنا اسك أنا حافظ له أفتي ورد داوي يسود عباس معناه ما حاول هردويس وردواي به نحتين درتيد وردوا نحتين درتيد هذيك dadka isbitaalka aaday iyo halkaas kuma jirin ma jirin marka idin ku yimid misla hadasheen yaxay waqti alaami aan isku aragnay inta ki imaadan salaxa ki imaanay dhan waa ka tagnile wax kale misweydiin soo weydiinaysan yaxye kutaa lagu marshay alla ka cabsi laga baahan yahay inuu ninkan xabad oo ku dhufsay ana dhimaha ogaano ku dhuftay ma jirtaa in marxuumka mobile laga dhiciro oo iPhone u wato iPhone jeebka uu jiraa jagboonti boo ka horgalaasay jagboonti ma joogin ba geedbay oo cabay xashiish oo cabay xashiish adba ku aragtay xashiish ku arkaasoo ii ku caawina gudubni ba markaas ma cabay yaxay wuxuu leeyahay xabad meel kale ka timid ku dhacday marka xabadiis inay tahay kutaabkaas ma marto kutaaban gacan u gashtay kutaabkaas oo marto waan arkiisman waa arkay kasoo u dilmaan kasoo u dil iimaan yaxye qoryo watay Soomaa qoryo wataa dar shacaba oo ku labisnay Soomaa dar military dar oo wuxuu wato oo ciidan jacket shaati wuxuu watay finaan oo ciidan ah iyo surwaal oo tuuto adiga markay cararteen oo marxuumkii dhacay oo meesha ku dhacay yaa qaada marxuumka ما وصوكعي كدب حقي هذا صحيح غريود كوي او دحay waqtiyaas waqtiga غريود oo kuwey oo dhacay dadkii wax ka qaaday ma ku jirtaa may adiga yaxye hore ma isu taqaanin waxa isku arkeeni ani asi daynil la kasoo wax ay iska seeni adiga ma aqoonin wajahan ma aqoonin ninka goorma kugu horeyso aragtay marwalba oo anana oo banoona aadeen waa is arkeeni asoo qori oo wato xaafad oo soo imaa oo laami oo qunqaa adiga wax bilowda aad leedahay ma jirto may wala haajir waa iska dhaaf arinta sax lagu siyaa Soomaali inta soonkaad iska dhaaft soo saasma may koortiisa iska dhaaf waa ku xanuunsaday xilliga oo uu falka dhacay bilwada lahayd soo saasma koortiisa aan dhaafiyaan ku dhaaf adiga xeeraanta markaad imaanaysay ehelada marxuumka ayaa ku dhahay marxaati noqo oo xeeraanta kula soo xiriir soo saasma may ma mahsanta bashir saak waxa lagu yeeray waxa geeriyooday Xasan Abuukar dhintay ragalka fadhina waa loo haystaa adiga markii wax dhacayn inta joogto seen wax u dhaceen horta anaga salaxa ka imaanay ciyaara ka imaanay marka salaxa ka imaanay laamiga marka taaganahay oo xaafada goolada xaafadiina gal rabno laamiga gaarkiisa waxa taagnaayeen yarkan oo la dhahayo gani iyo waxa taagnaayeen yaxay mid kale taale jiro mid kale waa fadhiyay
markaasaa yaxyiyaan weydiiyey waxaan ugu dhahay halkee ka imaateen markaasaa ku dhahan niyo salaxa ka imaana xaafadaan usii socnaan dhahay markaasuuna dhahay ayo ay sii baxa waa gudubne ada cabaar markaad sii socno oo waddada dhexaad sii mareyno mooto faykon naga hor imaatay mootadii faykonta naga hor imaatay leerkeeda indhaha naga soo qabtay wayna gudubtay gadaala usii fiirinay markaa gadaal usii fiirinayni yaxye iyo geniyey aan aragnay oo soo socdaan markaa aragnay yarka marxuumka xasana wuxuu dhahay waxaana soo daba socday yaxye iyo geniyaan soo daba socdaane maxamed wuxuu dhahay kule cayaalka xaafadda le waa kule wax mana dhiba ama naga badsadaan ay rabaan oo maleena kule waxay rabaan waa arkaynaa horta socodka naga buubsiin milasku halay karaan dhan waa soconay abeenadii aan marayno xaafadda geni iyo gurigooda agtiisa markaan marayno meesha leerarka daaran yahay waa nagu soo beegmay markay oo nagu soo beegmay qori ammaankiisa oo furtay qori ammaankiisa markuu furtay ana waa wada istaagno waa gadaal oo soo fiirinay waa yaxye iyo bartaan taagan xasan markaas mobile iPhone oo yaro oo teebkiis ku jiray xasan markii ninkan qori ammaankiisa oo furtay aniga istaagno soo jeesanay xasan orod oo bilaabay xasan orodka oo bilaabay ma ninkan xabadda oo soo riday xasan qoorta gadaal ka soo gashay qaankeena ugu baxay kabacdi anaga markii xabadda oo dhacday oo riday ninkan ku dhacday waa kala ararnaa anaga xaafaddaas sii galne xasan oo soo dhibaateynaayo xaafadda oo imaaday xaafaddii la qaylinaayo hooyadiisa qaylinaysa aan maqalnay meeshii markaa imaanna mooto bajaaj lagu qaaday xasan hortiina la soo qaaday kabacdi waa soo baxnay meeshii oo dhibka ka dhacay aan imaanay maxamed deeq cabdullaahi la soo wacay cabdullaahi waxaan dhahay ninkii xasan ahaa xabad lagu dhiftay ninkii oo yaxye ahaayaan ku dhiftay saasuu ogaaw maxamed cabdullaahi markaas wuxuu ku jiray farmashiyaha laamiga oo ka shaqeeya farmashiyaha ka soo baxay meeshuu nagu sugaayay anagana meeshii ka baxnay gurigii ka baxnay xaafadda ka baxnay xasan horteena la qaaday waxaan marnay meeshii oo shilka oo noogu dhacay oo kabaha iyo mobilada ay noogu dhaceen meeshii aan tagnay meeshii aan kasii baxnay mootaa qaadanay laamiga aadnay laami markaa aadnay waxaan meesha ugu tagnay cabdullaahi iyo cabdibile meesha taagan oo taliyaha degmada oo isla joogaan aan meesha ugu tagnay markaasaa taliyaha wuxuuna wareystay qofka xabadda idinku soo riday ma taqaaniin maxamed deeq wuxuu dhahay ninka xabadda nagu soo ridi yaxye waaye annagaa hubno yaxye xabadda nagu soo ridi yaxyaa markaasi oo saas oo aan leenahay hadalkiisa aan sheegayno askartoo ku dhex jira dhinacoo taagan yahay markaasi markii oo yaxye aan dhahnay oo yaxyii wuu soo baxay markaas magaciisa markuu maqlay wuu soo baxay maxamed deeq xaggiisa soo aaday maxamed deeq xaggiisa markuu soo aaday maxamed deeq ninka markuu soo socdo arkaysan waa ka horbaxay labada meesha qori iskula qabsadeen taliyii maxamed deeq oo dharbaaxay cabdibiliyo ku tuuray taliyii marka anaga waxa dhan anaga waa dhibaataysanahay wala saaxiibkeena dhibkaas la gaarsiiyey haddana anaga kuleel anaga keenay taliyo dhibkaas anaas idinka muhubtiin oo dhan inuu ninkaas oo ninkan xabad oo ku dhifto muhubtiin ha anaga goob joog aan dhan ninkaas 3 jeer aragnay marka koowaad oo laami oo taagnay oo weydiinay meesha ka imaanay in marka labaad oo mootada leerkeeda qabatay in marka saddexaad oo qori ammaankiisa oo furnay 3 jeer aragnay aan dhan saas miyaa ninka oo hadda xabad ku dhacda oo dhaawacay hadoo sheeg way ninkan xabad ninkan ay u dhifto doo dhiibay xabsi atiin ma ogashiin هاو أقولنا حبسينا قال سيجا وكسو بحنا محمد ديق وحال صار عبد بالله أنا بجاجك صوت بخادني وحاسكو إيماني وكي إسبتال كاسكو إيماني حسن ومركز وجوده اللي قال لنا ماشي جوجو أسكرتي أو لو صفي أسكرتي مركي لو صفي وحال لك صوت حصارني قحبتك وقلفت مركز أسيقو وينا وخيرونا وحكونا إن كان يحيى عبد وقلفت طريقة ماشي وكصحيح أسكني منكي يحيى مركز عبد بالله على الصاري صليق على الوضع أنت سأوجاني ما تقان رجعنا هربو تقان حافظه أكواركها كان كلنا يحيى وقرنا كان كلام حقها يا جني حافظه بدقية هبة أسقور مودن جني قور مودن قوري نقول يحيوها هاي 11 ودني سنقرنا yaxye in uu dilay marxuum xasan kutaab waa ku marsooma oo ku dhaartaas si kasta inuu u dilay oo si bareer u dilay noogu dhaartmaan xabadda markuu ku dhufay inuu u jeedmaano xabadda ma santa yaxye wuxuu joogay markaad soo marayseen laamiga soo ma si fiican asaga iyo geney ayaa wada taagnay soo ma si geney wada taagnaayeen mid kale tan meesha fadhiyay saddex ay ahaayeen dadka saddexdoodii laamiga ayay taagnaayeen soo ma laamiga gaarkiisa taagnaayeen wax cadaawada ama dagaala ama dakana ah oo hore idinkaga dhaxeeyay wax naga dhaxeeyay male wax markaas uu idinka qaatay oo ama moobela ama waxa ah ma jirta soo hod qaasho waxa ka horeysa inaad istaagto ka horeysa
kor u taaga gacmaha moobeelada keena ma idin dhah maya markaas meesha laamiga u ahay meesha falka ka dhacay marka ammaanka uu furnayo xabadda idinku ridayo iyo adinka intay isu jirtaan qiyaas ahaan ugu yaraan waxaa iskugu jirnaa 6 tilaab ilaa 5 tilaab adiga wax balwada ma leedahay maya wax balwada oo habeenka ay isticmaalayeen ma jirtaa adigiyo marxuumka dhintay Allah u naxariistay wax qaraabo oo inaga dhaxaysa ma jirto maya waxa isku naay malaaniya saaxiibo oo kaliya anaga dhaxaysa darisaatiin soo saas ma habeenkii marxuumka waa la qaaday isbitaal la geeyay adina xaafadada isku hoyay saas way soo waa ka soo dawbacnay Cabdibilaa ana soo qaada taliya ana soo qaada hadalku waa maqliis maxaa kugu dhacday دكتور كاو عبد الله كاو كيود عبد الله كيود قال عبد الله habeenkaas sidee wax ku soo gaareen wiilku waxaan ku dhahay abtiya waay markii waa isla shaqeynaa oo goob isla joognay abaara markay tahay farmashiya waxay xirnaa 4 saac weynaba 4 saac weynaba marka waxay dhaynay aan salaax u socdaa hayaan dhahay hal door raaw tuuray hal door lacag u tuuray ay salaax ku soo dhiilaan dhahay halkii door ay qaatay salaax oo aaday as iyo waxay soo socdeen Bashiir iyo Maxamed Deeq banaanka u fadhiyeen guu waxaan dhaynay mobilkan soo dhigaan dhahay mootaan saaray as Maxamed Deeq mobilka soo dhigaan xaafadda aad وأبحن حافظ هذا إنك موبايلك ما وصل دينا جابك كسو عشته صلاح وهذا أذن عبارة مركايتها هذه شن ساعة عبارة وينما أنا أجي فوق مركا ولا شيء اسمه حافظ مني لين كلا ديجان إذن لين كلا ديجانتها عبارة مركايتها هذه شن ساعة عبر حافظ اللي يقول ما هذا ميلا يقول ما هذا وده نيو الباب كفر هذا عنده حسنا حبت كل هذا سيام كسور داني موبايلك مركا حوته فرمشيا ماشان كشغال موبايلك ماشان وسطها marka imaade mobilkii marka walaashiya waxay wacaynaanay jigbotiga jooga video hada la daawana xataa taliyaha ka duway video oo hada meesha laga soo bandhigaa aniga inta abada ugu soo gashay meesha ugu soo bixisay taliyaha ka duway taliyaha dadkiisa ka duway video markaas ay ninka jigbotiga marka gaaray casano inuu gudbo uu diiday dhaawaan afka ugu yaala niyo ciidamadana uu sheegaya marka ninkii gini ahaa si fiican loo fahmay gini marka xoolaha gini iyo yaxyo dhaay marka ninkan gini la fahmaba walaashi marka ay soo wacda gini si fiican loo yaqaana markaas walaashi gini taqaana ninki gini ah in la socday aasana xabad igu dhufto taagan yahay nimankaas raadi waa ana marka farmashiya joogo hortadan joogay 5 saac bar farmashiya ma furna marka 4 saac amal la xiraa waayaan ana jigbo ana meesha taagan waxay soo wacay wiil ka tirsan askarta oo la dhahay Idris ay soo wacay intee joogtaa wadaniyo farmashiya hortada jooga aan dhahay bartaas ka dhaqaaqeen oo dhahay ayaa kula socdaan taliyaha ila socdo waayay bartaas ugu imaadaan saana uu sii jeeday dhanka jigboontiga u jeeday yaacay waxa ka imaaday gadaasheeda gabdha kale ana markaa soo orday banaanka imaaday gabdha kale xaafadda la degneen ay iga dawa imaaday hatta waa la weydiin karaa markay gabdhi iga dawa imaadeen ninkan leenkaas kale uu soo baxay asoo meesha maraa arag yaacay oo kaali aan waa wacay korna la soo wacaya meesha istaag korna la dhahay kaali la dhahay marka bartaas oo imaaday yaacay waxaan dhaynay saaxo kiisa meeshan ka dhacay wiilka abtigu ay asna u yaqaan xataa waxaan dhaynay wiilka abtigu waa xabad lagu dhuftay wax ma ka ogtahay arintaas may nimin inta mara xataa ma aragtaan dhahay mayna laakiin hal xabaa dhacday oo dhahay hal xabaa bartaan ka dhacday xabadaas laamay tahay taa nadarkeedu waa dhahay marka waxaan dhaynay taliyaha soo socday ciidamada iyaga sugaya isna marka saa ii dhaqaaqay taliyaha hore ku soo hayasna waxa intee joogtaa meesha jooga waaya bartaas ku soo hayday taliyaha aniga si fiican isku naqaana xataa waaya marka dhaay ninkan markii taliye xogaa iga dhaqaaqay xaq ama xogaa iga dhaqaaqay anaynu laamiga taagnaa asna laamiga xogaa iga dhaqaaqay xogaa markii igu faayay Cabdibiliya imaaday Cabdibiliya markuu imaaday ninkan xaq ama loo taagnaa Cabdibiliya oo soo dhaqaaqay agtiida oo imaaday ninkan oo soo daw baxay marka meeshaas la wada imaanay taliyaha soo digtay waa soo wareersanay waxaan inay kiiska meeshan oo ka dhacay waa soo fiirinayna keena marka kiiska meeshan ka dhacay waa soo fiirinayna keena markaan dhaynaba waxa imaaday Maxamed Deeq oo moota laamiga soo digtay وصورت محمد قاعدتيدو إماد أنا تليها أساس لا تجنن محمد قاعدتيدو إماد أكتيد مركوي إماد على إني عبد الله إنك حسن حبت كله في إني وأنا أركيه وإن هول واي إني كان مرك أذكر ثاني أوصف نت قداش يلو تجنا إني كان أو يا قدالو تجنا وصوب قد بي محمد قرتي سو استوى محمد إني ونك أنا حسن حبت كله في كان واي قري ولا دقي قري ولا قبض ده قري مرك ولا قبض ده إني حسن تليها كقاضي محمد داقي meesha xogaa rabshi waxa ka gaartay markaan inuu ninkan cadaan hada u hayo waa soo weydiinayna waa ninkan xaqiiqo wuxuu leeyahay ninkan wada ninkan xabad ku dhufinin $500 iga sharad ninkan wax hal marna oo $500 iga sharad ninkan halkiis waa siina haddo ninkan xasano ma ana dad dhax $500 iga sharad oo dhax waaya Allah si Cabdibiliya ku soo wada raacnay xasano loo keenay wuxuu ku jiray Allah u naxariistay markaas dayma loo sameeyay
aniga emergency una hadlay 10 daqiiqo ina sugo 10 daqiiqo ma sugi karnaa anday waayo 5 minute 5 daqiiqo na sugaydaan hayaa hadlay 5 daqiiqo markaa sugeen waxa la ninka soo baxsada ani askar kale israacnay maxamed deeq asna dhinac kale uga taagnaa banaanka camal oo taagnaa ani askar kale israacnay hada ninka inta joogo dhahay maxamed deeq maxaa asa u galay waxaadna boojo wax u galay malaha maxamed deeq aniga gacantayda ku soo bixinay gaas gacanta markaa ku soo bixiyay ani iyo wiil kale askari gacanta ku soo bixinay gaariga hoos saarnaa waa riixnay meesha loo keenay nimankii askarti safa la geliyay hortiya waxaan leeyahay ninkan inta ku soo bixinay nimanka askar saf geliyaan safo geliyay nimankii markii loo keenay waxaa leeyahay ninka gudil sheega hadlay ninkan yaxya leen kala taagnaa xataa saamarku saf u maray xabad barta amal uga dhacday horta saan u lixji waay marka saan oo dhahay saddex qof markuu amal ma ku gaaray xudhay mugu jiro dhahay markaas saan oo dhahay oo qaylay xataa dad badan ay joogay oo qaylay kan way ki xabad ugu dhufto dhahay saasan waa soo baxnay waxaan geenay saldhig cusboole saldhig kanaan dhahay saldhig kan kala geenay an iyo taliyada la soconay hal aniga ayaa ka socday dhibina ayaa ka socda anaa ka socdaan dhahay qorigiis ninka bartaas lagu baaray hal baalaad oo ka maqaneed xataa bartaas lagu kala baaray hal baalaad oo ka maqaneed waxay cali biris waxay la saciimo waxa laga qoray ubi way haanday laba saac subaxnimo saasa ku tagay ginigii isla waqtigaas horta nimadaas waxaan soo baxnay giniyaa raadinay ani taliyaad la soconay anan iyo ninkan cadaan hadii buuxda ninkan sheegay giniga cadaan buuxda noo yahay giniyaa raadinayna maadaama wiilkii gini uu sheegay aan dhahay alla giniyaa raadinay wiila markii meesha ka qabanay waxaan xafid gini noo geeyay xaafad ku dhigan aanu geeyay xaafadii waa garaxna laga furo waa la jibiyay xaafadii nin kale ku jiray gini xaafadistan waa on dhay marka gini xaafadistan oo tilmaamay giniga toosha ku qabtay ana xataa kor ana saarnaa xataa toosha saas ugu qabtay giniyo soo istaagaan dhay askarta ay la socotay giniga saas ku soo istaagay taliya marka banaanka yimaad hal dhar soo gashaa lay boomle wata xitaa dhar soo gashaa lay inay dhar soo xiro dhar soo xirtay wana kiiska lagu hayaa wax kama ogo dhay waayahay ninkan hada cadeynaysa lay marka xabsiga lagu geynaa maya waa weydiin karta xataa weydiin kartaa midda ninka hadda dhahay gabadha qoraalka ninka gabadha qoraal qortay waa walaasha waa wici kartaa hal qoraal ay taqaan ma laha seeta xataa ma qori karto seeta hay ma dhaafin karto qoraal ay qori karto ma laha qoraalada hadda inta laga soo bandhigin xasano waa qoray xasano as warqadda qofka qoray gacantiisa waa xasano waa anaba taagnaa maxamed deeq aduu xitaa xasano waa ana saas u taagnaa muuqaalka asba ku jira ma warqadda leeyahay warqadda ma ana taagnaa hada ICU waxay maalintaas hada 8 saac 7 saac malan la fasaxay waxa la banaanka malan la keena inta artin waa soo fiirsan kartiin Allah saas darteed waa walaashana qoraalkan hadda xasano waa qoray qoraalka asoo qoray wada duuban ma jira oo asiga qoraya wada sawiran asiga qoraal qoraa waxa la duubay warqad iyo gacan ma gacantiisu waa taas caadi ma jirta sawir ma ka qaad sawir ani asla taagnan maxamed deeq la duubaa baade doctor ma santa ifris kiiskan oo ay u xiran yihiin labada eedeysane kala ah Yaxya Cabdiwaaxid Aweys iyo Maxamed Barre Yaxya oo loo yaqaan Tugtug iyo Maxamed Barre oo loo yaqaan Gani waxay dhaawac xabadeed gaarsiiyeen dhibane oo markaa dhibana ahaa xasan Abuukar Cali oo ugu dambeyn u geeriyooday ugu dambeeyay ka soo maxkamad sharafta leh waxyaabaha cajiibka waxaa kamid ah meesha ay ku dhacayeen wax ay isku dayeen inay ku dhacaan waxay ahayd laamiga markii u suurtagal weysay ee luuqa gashteen oo xaafadda luuq ay ku leexsadeenna waxay isku dayeen in ay dhacaan laakiinse markii loo goobgareeyay xabadii marxuumka iyo saxaabtiisaba waxay cagaha ka dayeen inay ordaan oo ay naf bideen halkaas looguma sii siminaya waxay jeegada ku dhufteen marxuum xasan Abuukar Cali waxaana ku dhuftay jeegada eedeysane Yaxya Cabdiwaaxid Aweys waxaan rabaa mid gudoomiyay cadeemanka inaan maxkamadda la wadaago Yaxye waqtiga ma noolaa soo ahaa inaan la wadaago wuu hadlay asaga soo dhex baxsbalino waxaan rabnaa Yaxye qaabku ahaa Yaxye waa kana waa nin marxuum xasan Abuukar Cali waa kana oo eedeysane Yaxye uu ku dhuftay qoorta halkaas uu ku dhuftay afka halahan dhala bax dhagta qaybtan iyo daanka dhanba ma jiro marka qaabka oo u yaalay waa kana gudoomiye daankiisa qaabka u yaalo lafahaas burburay aad u jeedid waa xabadii shanta talaab u jirtay lagu dhufto way qaabkaas way daankiisa mid gudoomiye daan noocaas way xabadda halkaas loogu dhuftay halahan dhan waa baxay macna marka ma jiraan seedadkii inta iyo daankan iyo gabi ahaanba ma jiraan waxa saas u galay waa eedeysan Yaxya Tugtug oo qoriga dawladda saan ugu galay wuxuu ahaa isku xaafad ahaayeen wuxuu ahaa nin dhalinyaro xaafad degan Bangalo wuxuu ahaa wiil yar oo da soo baxaysa ah maamada aragto yartaa dhash wuxuu u ahaa horaada u ahaa horgalo u ahaa ninka saan u galay waa eedeysan Yaxya waa kana asigoo koomada ku jiro marka waxa ilaahay maadiya marxuumku wuxuu qoraa fariimaha iyo qori yaqaana inta markuu ahaa maadaama uu heli karo
وعدين لا يغور كريم وحور ريب فرين قرالات أو والعدالة هلي راشو إذا سنة يحيى إدلي يحيى توك إدلي هبلي أنا الجو فريمه هو أنا من قدوم فريمه وحود درا باره السلام عليكم واحد ربتد إيشك مقعد أوس الدحن يو مقع هويدا حسن أبو بكر علي آمنو محمد صالح ده ماشى كل تي وحصلنا لويديها وحويديها وباري حيابها صدنا وحي أهايين ولا أهايين اللي دتك كدلي وحي أهايين السجا إيه دنا يركره أو حشيش ماشي كعباي حيابها عجيب كان كوش من قدوم حشيش كان وحكته السئلة سنة يحيى إما مرحوم كاس ده يرد إنه دان كيسات وببجي وقدام بين وقريو سببته أدري كم جوابك يحيى معايا لي هودو كدري ما بتجوجين بقى بلايين مركو عبي وحكي أنتي إن مسكين كاس يركأه الدأ جرا ما ماذا يرتاح الشيء إنه نفسي نلاش مركو أساس شيء فرنت أساس قراي حياة هاين ولي حشيش مشكو عباين وين ورستين أنت كإيمان دينين دهين كدمنا صالحان كإيماني كدب وين صو راعين سيدا كدب دلنا يردي أنا جلس سعودي حبض أي نكسور دي سببت أودش محاور سببت أدلي أنا هو ذا كجرو وحشيش عبي قدامي حشيش كانوا حكاتوس أما مركا غار مركا علماء أدوي ديست أو كنت قصصي دراجس كالش إيه مركا جوجل جريس مسكحية وقف قسامبيا مسكحية مركا هيكين إذا إن قفوا كلام دغ برامبرو إن قفوا كلام دغ تحسي قفنا بالأدنى وما ماذا يدرس سان لو سكري أو إسكوليها أو هرادها ياو إذا سنة يحتوك تقول بليها برامبر إنه دلي وقابك هذه يا كل وعي لأن يراد كلمة عود الشيخ بارا وديها وكان بشير أو نونا ناس ولالو محمد أو لونا ناس إندي محمد داي عثمان صدق هذا أنت أنك إنه هبا عجيبك حوا صبرك أدري محل كريم وهو عباره إنه برويو إلهك عافيه لي ولا الكن باري هذا غير الله سي آمين يا ربي من قدام ميكسر محكمة شرفت له أنت أسكلي لوجو مسيح كان ولا غوري فرين تواتنا الساقة فرين الربا واحد يدي له قرها ولا عدالة الربا محكمة إذا إنك كدم بيسان ربا شو يدي إن محكمة وحكمته دلت وقشان تلو حكمه تلك مسار الربا ولا هل كانوا كقرا دتك مرقاتياش وأهاي أيو شيء من قدام هل كاسو كقرا ورقتاسو كقرا because أفكار أركت المحل كرم من قدامي أنا هذا رام بقى خلي كيسو عدالة كورة سنة هل كاسو كقرا وقرالك وقري من قدامي أنت كدب وحاحي إن مرحومك وجريودو حل رجينا إنه بكسدو ما دام باريه كيس إله وعافيه ويري إلهنا عظمات أبو ضرم لكن إلهي إسقى أقرتي إن وقتي سلاس وكيكا كنا السببي إلى سنة يحتوك أنكو إلينا عمر قاتاش أنكو من قدامي دان كماشي حبتك كهاليش إيقابك حبتك وقد عري غاتير تأدي وديرش لابد أختار اللي جي ودكفير يبكره دان كاس وين مذوباري هلا نواب بحري حبتك وقد عدنا كينيش من قدامي دهنا دانا حبتك وقد عدونا حبتك سوقش بس كده ماي وحن هنا ورقد إسبيتال المدينة أو شيء جيسو ريسون قولنتي هلا هذا الكاس حبتك كشيء هلا نواب من قدامي حفيز كده سكبعد كنت دالي إن له لو دتك أو قري سلوا ورش وأو هلاي وتعدمك اللي وذاك دونا محكمتنا اللي وذاك دونا سلوا كله حفيز كنت دالي إن لا تجو قبت واتنا من قدامي ما أنت بن أبو كاتاش ماشي كور رسناين ومشان ولامي قال سكراعي لامي نوارك ماشي لهايو مشان ولامي كل من اللي هو دي هذا سنة مرحوم كي مرقاتاش كل من لامي قال السكوارك صلح كي ماذا لوغه روقلين قبت وكد لي وقبت أصبر حتى أو بنان وحافظها لا يركب كود حرين واي قبت ومرحوم كد لي ماشي مرحومك إكسكتل وكل عنا وماشاس مرحومك وليبا وجهاتمي سوى داوع درمه يقولوا يجلس قرقراعي نفكته هذا سنة أنا بدو قدومي ولا السعودي وحكوك عن سيء إن وقريو هذا سنة يحتكتو أود المرحوم كاس بارستيد waxaa ii soo baxday in dil kasta inuu dil dhacay mas'uulna ka yahay eedeysane Yaxya Cabdi Waaxid Aweys kiiskan adaa baraka ah safiya si ila dhamadkiisa صح
marxuumka iyo adiga WhatsApp-ka xog aad isku weydaarsateen ayaa jira Soomaa waxaan codsanaa gudoomiye xogtaas in la siiyo si aan difaaceena ugu darsano oo telefoonka laga qaado xogtan aan aragnay is dhaafsadeen ma santa walahiila dad falkan geystay oo ay ku sheegeen eedeysanayaasha oo sawiradooda lagula wadaagay ma jirtaa mise ma jirto sawir la wadaagay oo leedahay ninkaana falka geystay leedahay ma jirto laakiin waxay ii sheegeen inaysan ayaga geysan oo nin kale uu geystay adiga marxuumka dhintay Allah u naxariistee inta uu dhaawac ahay ma la kulantay dhowr jeer isbitaalka kalkaal markii la geenayay 14 isbitaalka kalkaal anaa ugu tagay markii laga bixiyay isbitaalka kalkaal haddana waxa ugu sii tagay digfar oo ICU ku jiro koomo ku jiro marka saddexaad haddana soo waliba geeridiis waa geeri marxuumka galay koomada wuxuu galay 13 farka markuu dhacay adiga wuxuu galay labada bisha labaad oo digfar loo qaaday inta ka horeysay wuxuu inta kale ma hadli karin laakiin waxoogaa message wax ay fariin iyo wax walba wuxuu leeyahay ma hadli kar laakiin fariin aan kugu jawaaba ma haysaa fooqi xabada dishay ama dhaawacday marxuumka fooqeedii ma haysaa may waa la heli karay fooqi waa la heli karay Soomaa waa raadi laakiin waa heleel waay yani waa isku dayaa laakiin waa haleeli waa weysay fooqi waliba saddex maraan ku noqday si aan u helo marxuumka xabada ma ka baxday mise waa dhax fariisatay waa ka dhax baxday intay soo gaad kan dhanay jartaba waa ma santaa maxkamad sharafta baare gungaarkaada maqraatiga koobaad saas sheegtay maxamed deeq baa kuwa maxamed deeqna wuxuu sheegay oo maqraatiga koobaad gungaarkaada sida ku qoran su'aashaan dhameey sida ku qoran gungaarkaada in la soo wacay maxamed deeq oo uu soo goobjoog ahayn saas ku waafajinaysa gungaarkaada gudoomiye sharxi karaa ereygaasaan sharxayaa markii taariikhdu markay 13 bisha koowaad 2026 markuu dhacay falka dilka ah eedeysanaha marxuumka markay xabadu ku dhacday uu cararay meel luuq uu galay meeshuu ku dhacay intaas markay dhacday kadib waxaa yimid Cabdullaahi nin la dhaho oo hadda inta inuu fadhiyo u maleynaayo oo abti u ah marxuumka sigaa loo soo sheegay wuu yimid markuu yimid wuxuu u tagay taliyihii meesha xukumayay oo la yiraahdo Cabdi Shukri markuu tagay wuxuu dhahay Shukri wiil aliga dhaawacay saas ugu waa la isweydiiyay ayagoo meesha taagana waxaa yimid marqaatiyaashan oo carareen markii Cabdullaahi waay Cabdullaahi waay laba markaas Maxamed Deeqiya maxkamadda horteeda waxay ka sheegeen hadeer marqaatiyaashii inuusan joogin Maxamed Barre markii la qabanayo eedeysanaha iyo qod maya markii eedeysanaha la qabanayo markii falka dhacay kala saar ma joogin markuu falka dhacay waa la joogay laakiin markii la soo qabanayo ma joogin markaas lama joogin markuu falka dhacay kadib lama joogin Maxamed waxaa laga soo xiray xaafadiisa asagoo jooga saas Soomaa subaxii aan la soo xiro saas Soomaa waa mahadsantahay mid gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh maxkamadda ugu mahad celinaya ka garnaqa kiiskan iyo oo aan xafiis ahaan cadaaladda ugu raadinayno Xasan Abuukar Cali oo dhaawac u gaarsiiyay eedeysana Yaxya Tugtug ugu dambeyn u geeriyooday xafiiska ilaalinta wuxuu ku dadaalay in uu maxkamadda hor keeno waxa cadeeyahay kiiska uu ku eedeynayo eedeysanayaasha siiba eedeysanaha koowaad waxaan ku eedeyn inuu dil geystay dhaawac ka dhashay dil inuu geystay maxkamadda waxaa hor keenay mid gudoomiye marka koowaad oo ah Maxamed Deeq oo isla socdeen marxuumka wuxuu cadeeyay in marxuumka loo dilay si kas ah qasdi ah loo jeedo xabad la koob gareey tunkan lagu dhuftay afkaasna u baxay yaa cadeey Maxamed Deeq cadeey oo marka koowaad balse waa dureen abukaatayaasha qaraabo leeyahay haddana waxaa maxkamadda hor keenay Maxamed Cusmaan oo sidoo kale cadeeyay in marxuumka loo dilay kas loo jeedo tunkaas lagu dhuftay afkaasna u baxay qaabka hataa waa isku qayb gudoomiye Maxamed Cusmaan wuxuu cadeeyay meesha lagu wareystay waxa la dhahay waxay isku raaceen in la dhahay teeke imaadeen gudoomiye Maxamed Cusmaan wuxuu cadeeyay in mooto feekon oo hal darawal wado ay soo martay Maxamed Deeqna waa cadeeyay Maxamed Cusmaan waa cadeeyay toosh ay ku qabat Yaxya ay arkeen marka koowaad oo si u dhahay intay u socotaan laba mar la arkay marka saddexaadna uu goob gareystay ee soo fiiriyeen maxaa dhacay Yaxya dooban dhahayay shaatiga qor u qaaday intee ka imaadeen maxaa dhacay saa markii u fiirsheen in uu marxuumka bash u ku sii waliba tunka tugu dhufta afka dhan u baxay yaa cadeeyay Maxamed Cusmaan cadeeyay sidoo kale mid gudoomiye waxa xusid mudan in maragyadu ay sheegeen dharka nooca ay wateen isku raaceen fanaanad tuuta ah iyo surwaal tuuta ah yaa cadeeyay Maxamed Cusmaan iyo Maxamed Deeq la wali waxaan joogaa labada bar
mudug gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh waxay cadeeyeen in la goobgareey xabad hadeertaan haddaan xabad goobgareysto maxkamadda waxay aaminaysaa ama qof walba wuxuu aaminayaa in aan diyaar garoon diyaar garowgaas waa rabitaan maxaan rabaa saddex arrin inaan wax dilo inaan u diyaar garoow inaan isdifaaco iyo in aan inta iska gashto oo meelo aan u socdo laakiin diyaar garowgi iyo waxa isku xusay mudug gudoomiye xabadii oo ku dhacday marxuum taasoo cadeynayso waxa ahaa iraada doonitaan inay jirto iraadadu waxay ka bilaabatay intee u socotaan xaafadda waa la hubsado horta meesha u socdo kow laamiga doo dhilahay laamiga iftiin waaye mobilka iPhone heli maysid waxbaa ku jiro luuq inuu galay horta la cadeeyay iraadadu waa la helay mala soo daba kacaa yaa cadeeyay maxamed cusmaan iyo maxamed deeq ma laga daba tagay shan talaabo marka loo jirsaday inta xabadda la furtaa madax lagu dhufto tunkaas ma baxay mudug gudoomiye marxuumka aragteen oo yariiska waxa cadeeyay waa maraga labaad ee maxamed cusmaan amarayna marka maxamed wuxuu cadeeyay afar arin oo muhiim ah dharkii mootofay koonto qofka saarra hadii la ilaa mootofay koonto saarra dilay macquul ma hal dara walaa waday waxna ma wadan ganay oo la xiran oo la socday ay been ka sheegi lahayd ganay wax dila ma taagin xitaa yaxyaa qore watay yaxyaa goob gareystay yaxyaana wareystay yaxyaana dilay yaxyaana tunku dhuftay kuma dhaftaan la baashas marka maxaa yeelay waxay ka bilaabanaysaaba waraysi dabagal sii soco ku tag goob gareyso ku dhufo waa israacda maxamed cusmaan noo sheegay oo kitaabkaas jaamaca ah ee munasalka ah ilaahay noo soo dejiyay u maray mudug gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh maxamed wuxuu cadeeyay arin qatar ah oo in badan maxkamaddu ay maxkamadaysay oo ah wadankan mudug gudoomiye waxa dhibaato ku haya drugs waxaan aaminsanahay yaxay inuu ka shalaaynayo hadeertaan waxa uu geystay maxaa yeelay xashiishka markaa cabto waa mid aan sharaxnay baranbaray dadku la ekaanaya dadka dhinna laysa u baahanay dhiigga wuxuu kula dhaqanaya malaha yaxyi marka waylan dhaqreen yaxyi wuxuu u jeedi waayey xasankii uu aqiin oo bangala degnaa oo ay saaxiibada ahaayeen in uu saqiirka ahaa oo madax u salaaxi jiray ayuu baranbar u maleeyahay markuu madax halkaas ku dhufanayo oo halahan bixinayo inuu baranbaro kab ku dilay camal qaabku u dilay oo marxuumkaas afka halaan u dhaafsiyay mudug gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh maraga saddexaad muxuu cadeeyay maraga saddexaadna saddex sifo ayuu cadeeyay oo kow ka tahay dharkii oo kow ka tahay goobtii oo kow ka tahay mootadii oo kow ka tahay inuu gari la socday oo ay laba ka tahay inuu xashiish cabaayay oo ay afar ka tahay in uu ku dhufto xabad in uu goob galays حتى وقف تحت لما ديكر باشاس maxaa yeelay waa la daba kacay waa la goob gareys asaa lagu dhuftay marxuumkaas yariiska ah ee maamada aragto yariista ay dhashay mudug gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh saddex jeer inuu arko cadeeyay Bashir oo markii saddexaad ah markii koowaad uu laamay markii mootada markii uu soo daba gal waxa cajiib mudug gudoomiye qaabkii uu arkay inay sharxeen Bashir wuxuu sheegay saddexdooda oo ah Maxamed Deeq iyo Maxamed Cusmaan iyo Bashir inay fiirinayeen saas ay dhaheen qabac markii la sii saas ay fiirinayeen oo ku dhuftay saddexdooda ayaa cadeeyay saas mudug gudoomiye waxa cajiib mudug gudoomiye markii uu fal ka dhacay inta liyo uu goobta imaado in maamadu gurgeeda uu galaasay asoo dhaawac oo ay qaad u dhahay oo albaabku gargaraacay in isla goobta lagu go'aamiyay inta liyo uu ku go'aamiyay in uu ku yiri saddexdiina hadaad askarigan qaran been ka sheegta iska jira oo la wado isbitaalka tagay marxuumkan uu yiri yaa ku dilay yaa ku dhaawacay yaa afkaaga saan u galay yaa tunka ku dhuftay yaa xiye taliyin uu go'aansaday si cadaalad loo helo in uu xiro Yaxye oo qatar ku ah nafta ninkaas dheefsiin ugu dambeyn mudug gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh eedes xoo ahay maraga saddexaadna wuxuu cadeeyay sarwaalka inuu yahay sarwaal tuuta ah qoreen uu watay kaligiisna uu qoray ka watay meeshaas mootadina qoray wadan asiga uu qoray watay maraga saddexaad cadeeyay oo meeshan akeen inuu fanaanad wato cadeeyay oo dhilay shaatiga Cabdiro kala wata oo dhilay ma dhihin muxuu sheeg fanaanad oo sheeg maxamed Cusmaan muxuu sheeg fanaanad maxamed Deeq muxuu sheeg fanaanad maxaa isku mid ka dhig hadday dhilay iskeeba ayaga naftirkooda nooga marqaatay oo kaatayaasha
mudug gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh intaas waxay ku cadeeyayaan mudug gudoomiye waxaan maxkamadda la wadaagnay oo xusid mudan in meeshan uu ku qoray dhaawaci la dhaawacay kadib maadaama hadli karin war ah waxa i dhaawacay Yaxye waxa ila socday Bashiir Maxamed Cusmaan iyo Maxamed Deeq waxaan codsanayaa cadaaladaas oo ah in Yaxye oo saan ii galay oo laga yaabo inaan u dhinto inuusan iga dambeyn maanta maxkamadda waxay u fadhisaa cadaalad u helidda Xasan Abuukar oo saas noola hadlay mudug gudoomiye gashay maxkamadda sharafta leh xafiisku wuxuu garwaaqsaday intaas markuu arkay gartay isku waajib yeelay cadaalad u helidda Xasan Abuukar Cali wuxuuna maxkamadda hor keenay eedeysane Yaxye Cabdiwaaxid Aways loo yaqaan tugtug eedeysane Yaxye saddex marqaati balaas marq muujinadaan u keenay waliba qorigu ku dilin waa keen oo maxkamadda dooriyaan waliba mobilka uu daba kac waa keen waliba marqid waa sheegay inuu xashiish absana oo meesha isku dhuuqi jiro intaas markay iskaalmaysadaan tiirarka dambiga ma dhis fal ma dhacay yaa geystay Yaxye maxaa inuu geystay sababta xiriiris maxaa waaye waxa xiriirinayo laamiga lagu kulmay meeshii la tagay qaabka loo arkay iyo qaabka uu dilay rishonku u dilay maxaa waaye saddex rishon inuuna u malaynba bilaadan Xasan Abuukar oo u malayo baranbaro in uu cabsanaa xashiishkaas yeelay maskaxda noocaas in uu rabay mobilka iPhone-ka yarka oo miliga ah in uu ka dishto ugu dambeyn waa ka dishto waa orday taliya u soo qab mudug gudoomiye wuxuu isku dayay inuu Maxamed Deeq ku handado meesha taliya hortiisuna ku handado laakiin Maxamed Deeq oo geesi ah ayaa u bareeray adaa dishay ninka masaakiinka ay salax ka imaaday ilaal lagu dhahay waa bulisi military wadanka waxa loogu talagalay inay xasiliyaan wayna xasiliyaan halka xabo xumaayo kamid ahaa maxkamadda sharafka waxa ka codsanayna waxa ku soo eedeynay aayada 178 oo walakum fil qisas xayaat nolol aan ugu jirto waa lagu neefsaday magaaladana nabad ay naqatay waxaana ka dhigay waxa waaye qisaasta maxkamadda ciidamada ee fuliso oo cadaalad u helidda oo kamid yahay Xasan Abuukar ka dalbaneen qisaasi ay fulisay waxay keentay in maanta magaalada si nabad loo maro in meesha arabta atii karto maxkamadda sharafka waxa ka codsanaynaa si uu xaqi uu dalbaday uu helo Xasan Abuukar Cali in ay dil toogsha ku xukunto eedeysana Yaxye tugto oo ah middu Ilaahay noo sheegay xayaatun yaa ulil albaab xayaat waay nolol waay markii Yaxye la dilo nolol waafiya magaalada lagu noolaa maxkamadda waxa ka codsanaynaa inay Yaxye toogato ee dil toogsha ku xukunto eedeysana labaad Maxamed Barre Cali waxaan ku soo eedeynay inuu qariyay inay dambi tahay gacansiin ay tahay ayaan ka codsanay maxkamadda ku xukunto qodobka ku soo eedeyn maxkamadda maasanta salaan kadib mudane gudoomiye magacaygu waa Maxamed Xasan Cusmaan Jeelle qareena waa Yaxye Cabdiwaaxid Aways si waafaqsan qodobka 15aad 16aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxaan mudane gudoomiye aniga iyo saaxiibkayba qareen u nahay eedeysanahaas sara ku xusan oo aan maxkamadda la wadaagay magaciisa si wada jiran uga difaaci doonaa maxkamadda horteeda intaasna waxaan rabaa inaan maxkamadda u sheego sida kiiska uu u baalmarsan yahay xaqiiqada dhabta ah ama saldhigii ha ku soo cayaara kiiska ama xafiiska xirlaalinta markuu soo gaar waxay ahayd xafiiska xirlaalintu inuu ka wareejiye ninka arrintaas soo qoray inuu ka wareejiye si waafaqsan qodobka 111 inuu la wareegay baarista lama wareegin gungaarkii uu maxkamaddu suu gudbiyay horgeyntiya galkii la soo galiyay eedina galkii la soo galiyay intaas inay isfasiraan loo baahan yahay xirlaaliyana mas'uulka si waafaqsan qodobka 7aad iyo qodobka 71aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliya mas'uuliyadiisa oo xeerku uu saaray arrintaasna waxaan rabaa mudane gudoomiye qodobada eedda ku qoran horgeynta eedda lafteeda gungaarka xilliga falka dhacay kulligood mid saxsan kuma jiro kaliya waxa la isku waafaqsan eedeysanaha la yiraahdo asaa ninkii dilay intaas waxaan rabaa inaan uga gudbo arrinta ku saabsan qodobada iyo eedda waxaan maxkamadda la wadaagaa oo rabaa in maxkamadda u sheego maragyadii maraga Maxamed Deeq waa kafallahu mu'miniina qitaala asaa maxkamadda hor yimid marka hore wuxuu isku dayay arrinta inuu ka warwareego laakiin maxkamadda si ay cadaalad u hesho su'aalaheedu waxaa ka soo baxay iyo kuwan anagu weydiinaba in maraga uu leeyahay qaraabo haddii marka maraga uu qaraabo noqdo
hadduu maragga qaraabo noqdo si waafaqsan mudane guddoomiye waxaa dan ugu jirtaa kiiskaa dan ugu jirtaa si waafaqsan qodobka 197 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya maragiisa waa duraya waana la diidayaa waxyaabaha iyo siyaalaha loo diido maragga ayuuna kamid yahay maxamed deeq marka meeshaas uu ku dhamaaday hadduuba eedaysani dhibanihi la koray ayaydiis ay dhashay ayaydiis asaga habaryartiis inta ay soo istaagtay ay tiri ilma habaryaraan ah waa dhamaataba isla qodobka mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafka leh 300 iyo 4 wuxuu qeexayaa yaa qaraabo ah xeerka ciqaabta Soomaaliya yaa qaraabo ah usuusha furuucda gabdhaha walaalaha zawjka qaraabada xididka waxa soo dhawa qaraabo manfaca ugu jirta dana ugu jirta marka asaga kama markici karaba fal galkan maba ka marqaati kici karaba maragaasi marka meeshaas rabaa inaan uga baxo maraga indhay u imaad maraga indhay wuxuu sheegay wax maragyada kale aanan arkin oo la yaab leh 3 nin oo laamiga taagan ee marqaatiyaashii la keenay ay dhaheen waan aragnay su'aalayna weydiiyeen wax ay cabaayeenna ma jirto ayuu yiri xashiish cabaayeen qacsaayeen su'aashaas laftirkeeda weydiinay xashiish ma cabaayeen eedaysanaas waxa weydiinay marqaatiyaashii kale ma ay dhaheen annaga ma arageen soo xashiish cabaay eedaysani marqaatigaani wuxuu ba khilaafsan yahay maragyadii la socday oo laba ah asaga hal xabo oo laba ah ayuu khilaafsan yahay waa marag duran jaban waa ninkii laba marag oo la socotay waxaynan arkin waliba la arki karo arkinna yiri waa arkay waxa uu sheegayo ka dambeeyana waa been waxa uu sheegayo ka dambeeyana waa been waxba kama jiraan waxa soo hara maragga la yiraahdo Bashiir Bashiir waa hal marag hal marag dil qisaasa ma ka maraakici kara ma ka maraakici kara fiqh islaami ma ogolaba dhibanihi Allah u naxariisto marxuumkii dhintay jannadii Allah geeyo kuma faraxsana inuu dhinto marxuumka kuma faraxsana eedaysana wuxuu leeyahay xafiiska xirlaale wuxuu yiri WhatsApp-ka telefonkiisa ayay iskala hadleen maxdarka loo geliyay waana duubanta telefonka lagala hadlayna waa la soo gudbiyo annagana waa la siiyay waa kana warbixinta ay leeyahay telefonkan isku dhaafsaday lambarka 587 kuma ba qornaba Xasan Abuukar ma balahamba Xasan Abuukar ba male حسن أبو كرب ملك وها إسكله أمينة محمد صالح إسكله وأنا هو يدي إيانا كلا هذا الشيء إيانا كلا هذا الشيء وربحت أنا كفهمي كرتا إذا أيضا كلا هذا الشيء حال له مجا عاجة أوسط دحن ولا الإيشاك قال له إيا مجا هو يدا أكو قرن حسن أبو كر علي أمينة محمد صالح تلفون كيسي isaga oo uu lahaa ma aha waxa laga hadlaayay waa taleefan ay leedahay maamada ayaa warbixinta isdhaafsanayaan iyo baara wuxuu leeyahay marka waxa ila hadashu leeyahay waliba fiiri mudane guddoomiye in ayagu isla hadleen waxa ka fahmay bukaanka hadda ayaan sawirka ka soo qaaday leeyahay waa kana haddaan sawirka ka soo qaaday leedahay sawirkiisana waa kana soo ma jeed asagana wuxuu leeyahay xafiiska xirlaalaha baaraha iyo xasan inta uu noolaa isla hadlay arrintaas iyada waxay khilaafsan tahay cadaynta uu soo gudbiyay khilaafsanta nambarkaani waxa ku qoran gabadhaas saa ku qoran waa nin telefoon leh ayadana waxa waaye maragyadiina waxaan rabaa inaan meeshaas uga gudbo warbixintii ku saabsaneed WhatsApp-kana waxaan rabaa meeshaas inaan uga gudbo waxaan rabaa maxkamadda inaan la wadaago maxaa dhacay waxa dhacay maxay yihiin xer yaxya xagee joogay seesa waxa haayeen ilaa maxkamaddu meeshii ma tagine horteeda wax looga sheegay annaga waxaan rabaa inaan la wadaagno xaqiiqada dhabta ee jirtay mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafka leh xilliga falka dhacay habeen 4 saac habeen 4 saac ayuu taliyihiisa la socday Cabdi Shukri ninka lagu magacaabo ayuu la socday
cabdishukri markuu tegey xerada bangala ay galeen wuu ka soo tegey yaxye wuxuu degan yahay isla bangalu degan gurigiisu u socday laamiga waxay ku kulmeen meesha muhiim waa waxay laamiga ku kulmeen nin la yiraahdo Cabdullaahi oo hadda meeshan fadhiyo oo wiilka abti ah Cabdullaahi wuxuu ku yiri kaale gurmad iyo fidi wiil aan abti u ahay ayaa xabad ku dhacdaa la yiri hadduu ilaahay ka cabsanaya saada la weydiin doonaa dabcan inkastoo ehelkaya waa la weydiin doonaa intaas markuu yiri muxuu sameeyay yaxye u fiirsa mudane gudoomiye yaxye wuxuu wacay taliya cabdishukri wacay asuu yiri waxa ila joogo nin odaya wiil asaga abti u yahay in la dhaawacayna ii sheegay ayaa ila jooga ee kala yimaad meeshaba taliyaha inuu yimaado waxa sabab u ahaa yaxya sabab u ahaa oo wacayba oo keena meesha markii meesha la yimid oo taliye meesha uu yimid Cabdullaahi u fiirso Cabdullaahi taliye iyo yaxye intaba waxay soo aadeen goobta falka ka dhacay waxaa la ogaaday oo ay ogaadeen in ninkii marxuumka ahaa ama dhaawac ahaa laga qaado meesha ninkii dhaawaca in meesha laga qaaday oo la baxay meeshaas markay joogto ehelkii oo uu ka mid yahay waxaanoo dhanna saldhig u ah maxamed deeq oo guriga kula soo koray oo ayeydii ay dhashay oo markii hore iska inkay laakiin habaryartii ay cadaysay marxuumka hooyadii ay cadaysay ayaa yiri wax kale ma jooga meesha alla ilaaha markaa geedka ka soo dhacaysay yaa ku dhawaay yaa meesha joogo qori wata yaa qori wato meesha jooga markaasuu farta ku taaga marxuum eedayso oo yiri ninkaana aad dilay ilaa asaga meesha joogay Cabdullaahi og xogta dhanka warqaba waxay ahayd in la abaal mariyo la yiraahdo waxa wacda taliye fiiri askari magaaladan wax ku dilay ee maxkamadda ciidamada ay ka dambeysay ee magaaladan wax ku dilay miyaa taliye inta wacdahay kaale gurbada u fidin qofka la dhaawac kaale u imaad mise waa carra qorigu qari laha wuxuu haystay fursad uu qori ku qariyo wuxuu haystay fursad uu ku fakado haystay waxa soo dhow haystay ma jirto marka inuu dilay ma jirto arrintaas waxay cadeynaysaa inuu wax shaqo ah ku lahayn falka meesha ka dhacay meeshaas marka laga soo baxay marka mudane gudoomiye isbitaalka la yimid isbitaalka markii la yimid ninkan odayga ah ee maxamed deeq ayaa inta baxay u galay sida dadka goobjoogana ay sheegayaan eedaysana laftirkiisana uu sheegay wuxuu u galay ninkii dhaawacnaa xasan u galay markaasuu ninkii waa joogay yaxya ahaye kaale ku dheh yaxya waxay waliba wuxuu la soo baxay asoo farta ku fiiqay waa kaasa yaxya soo dhaay ninkii odayga ah waa soo baxay isla markiina ninkaana ay dhaawac u yiri waana iska noqday meeshiisa lagu celshay habeenuu dhacay oo shaqartu degan tahay 5 saac habeenimo iyo 4 saac eeriyadeeda ah la kala seexday subaxdii hadduu meesha ku kalaho isla habeenkii waa la xiray ninkan odaga markii la xirayba faldambiyeedkii waa gaaray saldhigga soo maahan ha isla markii subaxii aroortii inta buuxinteena dad soo kicin fooq inuu meesha ka soo qaado isu baaro isla haysiiyo isu keena maxkamadda ma dhicin waa ka gaabin asaga uu ka gaabiyo waa duudsiin xaqi marxuum ka dhintay allah u naxariistee cadaaladda horteeda lagu duudsiinayo waay mana aan si saxa waa eed uuna lahayn eedaysanaha oo la saarayo waa anoo maxkamadda u beeqaaminaya waqtiga waxyaabihii aan ka tegay iyo difaaca qaar ka mid ah waxaan u deenayaa qareenka saaxiibka u deena iyo gabagabadaba maxkamadda sharafta leh waa maasanta maadaama dhammaan cadaymaha iyo maragyada maxkamadda la hor keenay ay isburinayaan iska hor imaanayaan dhacdada ay shubahaad kala duwan ku furayaan maadaama muwakilkeena markii eed loo jeediyey uu ku jawaabay in uusan faldambiyeedkaasi uusan gelin cadayntana ay saarantahay xafiiska xeer ilaalinta si shaki la'aanana uusan u cadaynin in eedaysanaha uu falkaa galay sababtoo ah saan sheegay uu keenay cadaymo aan lid ku ahayn muwakilkeena oo dhammaantood shubahaad uu ku furan yahay maadaama asal ahaan qofka muwaadinka uu beri yahay ilaa looga cadeeyo faldambiyeedka si aan shaki ku jirin waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in ay muwakilkeena ku weyso dhammaan qodobada eedda ee lagu soo eedeeyey inay xorriyadiisii ay dib u celiso iyo inay qaraariso in shaqadii qaranka uu hayay uu dib
sii wato maxkamaddu waa mahadsantahay. mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waa Abukaati Ismaaciil Xalane oo qareen u ah eedeysane Maxamed Barre Cali Axmed. mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysanaha aan qareenka u ahay run ahaantii waxaa lagu soo eedeeyey qodobka 297 oo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed mid sheegay haba yaraatee in uu gacan fidiyey eedeysane Maxamed Barre Geney gacan inuu fidiyey mid sheegay ma jirto mudane gudoomiye saddexdii marag oo la keenay maxkamadda intaba ma aysan tilmaamin mana aysan oran Maxamed Barre gacan uu ku bixiyey dhibka maanta maxkamadda ay ka garnaqayso marka laga soo tago marka saddexda marqaati baarista kiiska waxaa lagu dhisaa caddeynteeda maraga haddii maragii uusan oran taas haddana mudane gudoomiye baarihii kiiska su-aashii aan weydiiyey ahayd ma ku jiray gacan ma fidiyey ma geystay goobtii markii laga soo qabanayay falka dhacayay ma ku jiray maya hadduu ku jawaabay idmiinis waxay dhigaysaa Maxamed inuu meesha biri ka yahay oo shaqo ku lahayn garnaqa maanta loo fadhiyo ee dacwadan Maxamed maanta wax lagu ciqaabi karo oo la keenay ma jirto marka loo kacana shariicada islaamka waxay leedahay walaa taziru waasiratan wisra ukhra marka bataatan ba maxdarka maanta aan fadhino hal cadeyn oo cirbad caaradeeda la eg oo la soo bandhigay oo Maxamed Barre lagu leeyahay intaanu ku leeyahay qodobkan 297 marnaba ma jirto marka hadaysan jirin codsigaygan u gudbaaya maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa maxdarka hadda aan joogno isla fadhiga hadda aan fadhino inay ku dhawaaqdo siideysmada Maxamed si waafaqsan qodobka 122 oo ah in lagu waayo dambigaas qodobkaasi 297 mar labaad maxkamadda waa uga mahad celinaya codsigaygana inay ii tixgelisaan rajaynaya Maxamedna hadda eheladiisa inuu dhinac ka raaco maxkamadda waa mahadsantahay dood baa dhegeysiis maanta dhamo maxaa ku baxay waxaan arkay nin Cabdullaahi la yiraahdo hadda goobta fadhiya oo dhahayo wiilaan abtuu ah la dhaawaca asaga waxa dhahay gargaar u sameey maadaama muwaadin Soomaaliyeed oo yahay meesha joog anina goobtay shaqada ilaa hadda markaas kama aan bixin waxaan dhahay ninkii halkee wax lagu dilaan dhahay xaafada dhexdeeda uu tilmaam waxaan si taadii qorayeen qoraya wax lagu dilan oo leeyahay waxaan ka baqay keligii macnaa meesha ina aado hadii aan tagana waa hal shakhsi qora waa qof qori wata kula xisaabtama Sooma kaliya wax kama qaban kartid waxaan dhahay tan kuma dhaqaaqi kartid sargaalka waxa kuma maadaama uu ka agdhow yahay sargaalkan waxaan dhahay tali meeshaan dhib laga sheega dad la dhaawacay meeshaan ina ka soo gaartaan rabaa yaa waayo yiri waxa kula taagan meesha aan taaganahay hadan been sheegay way har fadhiya meesha aan taaganahay farmashi oo ka shaqeeya alaamiga bartow ka saaran yahay aan taaganahay waxaan dhahay taliya asaan oo imaahaye bartaan aan ku wada sugun hayaho idhaa barti kama aan wada tagin aan isku arag taliya barti noogu wada imaaday Cabdibilaan barti ka raacay doonta raacay asagana taliya shirka la galay markaas ka bacdi meeshii dib ka dhacay marka meeshii dib ka dhacana wax taagan mala wax yaalana mala oo dhaawacana ma aan ugu tagin dhiig leh dhulka yaala ugu tagin halkee waa aan wixii dhaawac dibka sheegaydeen aaway waa taliya weydii isbitaal loo qaado dha markaas ka bacdi anagana soo aadna isbitaalka hadda imaanana waxa la sheegaba ana qaado waayay qorigayna waa ka soo doortaado yaal hadda xabad ka dhacday asaga ay cadeeyaa asaga cadeynaya qof muwaadin oo shalay aan u shaqeeyahay in aan wax u geystana ma dhicin taas mana dhacay maxkamad ma ka dalbanay xoriyadda la siyaar baan ganay maamul gudoomiye adiga ninkaana wax dilay asaa qarnay hal ugu dhas maamul gudoomiye aniga ninkaana doo wax dilay mase wax geysta aniga inaan qariyo ma xataa aabay haduu yahay xataa aniga garbeyga malaa'iga saaran waxa hadda maxkamadan waa dhageysay aniga dacwada waana maqlay gacansiin aliyeeri gacansiin aniga qofka bilaadka marka horta oo wax dilo Soomaa gacansiin waxa siihay aniga ninkan walaalkay aniga waxa hadda la sheegay gacansiinta waxa leeyahay ma jiraan aniga gacansiin hadaan sameeyahay ninka wax dilay ninkan waa looyaa qorigiisa ma qaadi lahay ma asigaan la fakalahay la dhuu ma lahay waayo inta soo baxyo oo yimaado laamiga taliyiis inta wacyo masalaama amaanka inuu inta waco ma dhihi lahayn ahayd falkaas dhacay hal yimaado habeenkaas taa joogtay habeenkaas aniga adaan dambiga sheegay garbeey malaa'iga saaran laamigan horta anoo fadhiyo aniga iyo wiili Muuse liiraaw iyo mid kale laamiga fadhiyo
waxaa loo yimid 4 saac bar marka ay tahay yaxye meeshoo nagu salaamo waa is salaanay meeshoo laamigoo dhinac ka istaagay darbiga laamiga saa markuu noogu istaagay waxaana soo maray marxuumkaan dhintay iyo yarkaas iyo yarka kaloo hadda meesha marqaatiga waa hadda la leeyahay isna inta meesha hadda la soo istaagay waa isla socdeen ayakaa marka su'aashan u bawraayay warama caaladii waa fiicnaan yaxye ayakaa su'aasha isdhaafsaday warsayntii caaladii ka war waa fiicnaa meesha ku ekeenay markay ninkaas iyo dheerka oo buuran waxa soo jirnay yarka dhimaayo nimaho caawa waa cafuufeysanahay salaxa nagala soo xirta caawa xaafadaan u socnaa saas mi aan dhaanay yaxye asaa iswareysteen saas mi aa bilaa tawfiiq saas tahay habeen wanaagsan sidii noogu gudbeen meesha markay noogu gudbeen sidii intaysana gudbin ee luuq ayna gelin yaxye markuuna soo ag istaagayo mid askariya oo qoro wato iyo cunug shacaba oo maaskaraati wato meesha soo istaageen yaxye markuu soo istaagay yaxye iyo kii qoriga wataa warka isdhaafsada labada nin oo qoryaa wadataa war isdhaafsadeen yaxya wuxuu yidhi niyow waxaa ka wadoo yidhi wixii aa samaysa galabta kii qoriga watou leeyahay markii kii oo la yidhi waxaa samaysa xeeta oo yidhi niyow saaxiibkay maxaa ku samaysoo yidhi galabta falka qoriga ugu qabat xee ahayd yaxyaa dhaa moogtahay kii kaloo qoriga wataa soo booda wuxuu yidhi niyow aniga inaan qoriga ku qabto madow laakiin habeen dhexdaasoo qorig ugu qabtay aniga qorla-aana ahay maadaama aan qorla-aan habeenkaasa ahay anigana qorigayga caawawatay saas awgeed aan ugu qabtay waana naga degteen markay degteen yaxye dhalinyaradan oo salaxa ka yimideen aana soo mareen aniga ninkaas marxuumka walaalkay waa dhintay aniga inaan dembigiisana duugano aniga ma laga yaabo wixii aniga ogo ilaahay uu ogyaana sheegayo goorma kala tagteen marka yaxye aniga 10 daqiiqo ma dhameen baan waxa isla wada joognay oro ka baxay waa kala tagnaa asiga iyo muuse gure yar aniga ila fadhiyo marka hore 3 meesh ku fadhinay asaa 4 nagu ahay asiga iyo yar kala israaco muuse gure leeyahay xaafadaan aadaawir aniga xaafadeeda aadaan la saac maani waa ma sitay sidii aan ku kala tagnay ninka dhintiya dil marka xabad ku dhif ma sheegi karo ilaa loo garbeeyay malaa'iga saaramadu gudoomiye aniga gurigayga anoo jiifaa la yimid 7 saac bar marka la yimidna guriga igu dhagnaa guriga waalidka wararta degnaa guriga ayadoo la jajabaan soo kacay xeetaan dhaa guriga waxa la jajabaa war soo baxdiga lagu baayay xaajiraan dhahay saaxiibka ahayd saaxiibka yaxye wuxuu u deegeesta dil yarkaas sebela war aniga waxaas ma og mana kala aqaanaan dhaani waxa oo geestane mana aqaan saas deeta adaa kala saaraa nabadaali saldhiga liimakeenu xaligeeyay laanta kale oo ka tirsaneed cusboole marka hadaa kala tagteen dhinaca ciyaalka ay ka baxeen aadin miya adiga yaxye aniga ma yaxye laamiga halkaas soo aad xaafidiisa iska aniga xaafideeda ciyaalka tii aadin marka aad ma raacmin saraac ciyaalka wada isku wadaan lahaaba aniga ayaka yaxye marka wadaas ma maraasna ma qaadan laamiga halkaas u qaad anigana wadadeeda ka soo bax maxkamad maxaa ka codsanay maxkamadda waxaan ka codsanayaa dambi maliyo aniga qof muslimaay qof dhintan aniga been ka sheegi maayo 3 bilood bisha 3aad aniga xuriyad la'aan xuriyadeeda inaan ka helan ka codsaa dhegeysiga garmaqalka dhanka ka ahaa eedeysanay yaxye cabdiwaaxid aweys iyo maxamed barre cali intaasuu ku dhan yahay maxkamadda go'aan soo saaraysa fadhiga waa xiran yahay